Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada channelka maanta. Dunidan waxaa ku nool in ka badan 7 bilyan oo qof. Waa hubaal in qof walba uu u baahan yahay garab istaag iyo dhiirigelin. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa dad kaa yaabinaya oo aadan horay u arkin iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba oo la kulmay caqabado badan kadibna noloshooda guul ka gaaray. Haddii aad ku cusub tahay channelka maanta, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adiga oo share gareynaya muuqaalkan. Ku soo dhawow shirkadda adeegyada tiknoolajiyadda ee Yoltech. Waxaa hadda si fudud ugu soo wareegi kartaa web hosting-ka Yoltech iyadoona dhammaan xogta website-kaaga iyo emailadaada lagugu soo wareejin doono si bilaash ah. Ka mid noqo kumanaanka macaamiil ee ku faraxsan adeegeena. Wixii faahfaahin dheeraad ah nagala soo xiriir nambarada ku muuqda iyo emailka. Yoltech u heelan macaamiisheeda. Albert Kilian. Maska waa mid ka mid ah xayawaanada halista ee wax qaniina. Dadka inta badan way ka cabsadaan markay arkaan, xitaa waxaa laga yaabaa markaad jiifatid inaad ku qarowdid. Ninkan wuuba xanaanaystaa masaska, wuxuuna gurigiisa ku haystaa 60 mas kuwaasi oo ah noocyada khatarta ah oo la yiraahdo cobra. Waxa ayna qaniineen in ka badan 100 jeer, wuxuuna u sameeyay dulqaad iyo inuu u samro, maxaa yeelay aad ayuu u jecel yahay masaska xanaaneyntooda, isagoona qabiir ku ah noocyada sunta oo ay leeyihiin masaska. Ninkan shaqada uu hayo ee masaska waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu khatarta badan dunida oo la qabto. Mike Greenstein waa mid ka mid ah dadka talentiga leh. Aabihiis ayaa soo noqday ninka ugu xooga badan adduunka, isagoona siin jiray tababar 4 wiil oo u dhalay. Wuxuu ilkihiisa ku jebin jiray biraha. Kanina waa mid ka mid ah wiilashiisii. Waxa uu leeyahay xooggii aabihii oo kale, waana ninka ku jiiday ilkihiisa gaari markii uu jiray da'da 91 sano. Si la mid ah taas 94 sano markii uu jiray, haddana waxa uu ku jiiday ilkihiisa gaari. Waxayna noqotay arrin cajiib ah isagoo intaas jira inuu afkiisa ku jiido gaari. Waxa uuna geeriyooday sanadii 2016 isagoo jira 95 sano. Zayn Kalog. Wiilkan 21 jirka ah kana soo jeeda Mareykanka. Ma lahan wax luga ah oo sidan ayuu ku dhashay. Waxa uuna ahaa mid isdhiirigeliya isagoona ku qortay dhabarkiisa wax marmarsiyo ah ma jiraan oo micnaheedu yahay haddii aad naafowday horumar waad samayn kartaa. Waxa uu bilaabay tababarka ciyaaraha lagdanta isagoo aad u da'yar. Xilligii uu ku biiray iskuulka waxa caawin jiray macalinkiisa isagoona u sameyn jiray tababar aad u badan. Waxa uuna sidoo kale ka qayb gali jiray ciyaaraha Olombikada ee naafada loo qabto. Waxa uuna yiri wax kasta oo aad rabtid waad samayn kartaa haddii ay ka go'an tahay adiga. Deepak Chandra waa wiil dhalinyaro ah oo u dhashay Hindiya. Waxa uu soo bandhigay talentiga uu leeyahay dhanka korontada, kaas oo aysan karin korontada. Markii ugu horeysay waxa uu koronto u xirayay hooyadii, markaas oo uu ogaaday in aysan karin korontada jirkiisa. Xitaa isagoo haysta fiilooyinka korontada ayuu gacanta biyo dhex gelinayaa, mana uu dareemayo. Sidoo kale waxa uu carabkiisa saarayaa korontada, waxna kama bedelayso jirkiisa. Laakiin waa mid dad badan dili karta dabka ay sido. Wiilkan mar wax laga weydiiyay arrintan ayuu sheegay inay tahay awood Alle uu siiyay, waxayna la yaab ku noqotay dadkii magaalada kula noolaa. Dunivia Walker. Gabadhan 16 jirka waxa ay dhalatay iyadoo aan lahayn gacmo, waana mid aad u fircoon ahna howlkar, iyadoona wax kasta oo ay u baahan tahay ku qabato lugaheeda, sida inay ku isticmaasho telefonkeeda, cuntadana ku cunto. Waxayna u noqdeen beddelkii gacmaha. Kaliya maahan in ay wax ku cunto ee xitaa baabuurta ay ku kaxaysaa, sidoo kalena lugteeda ay wax ku qortaa. Markii dambe waxa ay go'aansatay in ay ku biirto mid ka mid ah shaqooyinka adag ee la qabto oo ah askarinimo, iyadoona qaadatay tababar 3 sano. Waxayna sheegtay sababta ay u dooratay shaqadan in ay dhiirigelinayso dadka lixaadkooda uusan dhammaystirnayn. Waxa ayna tiri way awoodaan wax kasta ay ku haminayaan in ay sameeyaan. Sanchez waxa uu ku barbaaray Los Angeles isagoona ku biiray tababarka ciidamada badda ee Mareykanka sanadii 1996. Waxa uu ka mid noqday kuwa qaaska ee badda isagoo ka mid ahaa 6 sano ayaa mooto la rogmatay. Waxa ayna wax ka gaareen dhabarka kadibna naafa ayuu noqday. 5 sano kadib markii uu dhaawacmay ayuu bilaabay in uu horumariyo waxbarashadiisa iyo tartanka baaskiilada naafada. Waxa uu ku guuleystay ciyaaraha 3 mar 2008 isagoona guud ahaan ku guuleystay ciyaarahan 18 jeer. Sidoo kale waxa uu jaamacad ka qaatay shahaadada ganacsiga iyo maamulka.
Jessica Kekes. Gabadhan waxa ay dhalatay sanadii 1983 iyadoon lahayn wax gacmo ah, laakiin waa mid u isticmaashay lugaheeda sida gacmihii oo kale, sida baabuur wadista iyo waxyaabaha kale. Waxaana intaas u dheeri ah inay noqotay gabadhii ugu horeysay ee gacmo la'aan ah oo qaadatay leesin diyaaradeed, taas oo duuliye ka noqotay. Sidoo kale waxa ay ka qalin bedelatay jaamacad iyadoona qaadatay shahaadada cilmi nafsiga, waxa ayna noqotay dhiirigeliye kula hadla dadka fagaaraha. Nick Vujicic. Ninkan waa mid ka mid ah dadka naafada ah, mana uusan lahayn markii uu dhashay lugo iyo gacmo midna, laakiin waxa uu lahaa cago yaryar. Waxa uu dhashay sanadii 1982. Markii uu dhashay hooyadii waxa ay tiri kan ma qaadanayay. Ugu dambeyntii dhakhtarkii ayaa u sheegay in la saari karo kursiga naafada. Kadib markii uu koray ayaa la geeyay iskuulka dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxa uuna la kulmay caqabado badan. Markii uu jiray 19 sano ayuu iskuulka ka codsaday in la siiyo jaanis uu ardayda uga soo horjeediyo khudbad. Wixii markaasi ka dambeeyay waxa uu noqday dhiirigeliye, waxa uuna madax ka noqday sanadii 2005 shirkad. Waxa uuna sii waday dhiirigelintii uu caanka ku noqday isagoona safar ku tegay wadamo badan. Waxa uu noqday mid ka mid ah dadka ugu caansan dhanka dhiirigelinta, isagoona guursaday sanadii 2012. Waxa uuna aabba u noqday 4 carruur ah. Aaron Fatherham. Wiilkan waa mid ku dhashay naafanimada. Waxa uuna dhashay isaga oo dhabarka xanuun ka qaba, kadib paralysis ayuu noqday. Sidoo kale waxa uu noqday mid noloshiisa oo dhan isticmaala kursiga naafada. Waxa uuna bilaabay markii uu yaraa in uu tartamada ka qayb galo, waxaana lagu naanaysi jiray Willis. Waxaana la guddoonsiiyey abaalmarino badan, xitaa dadka lixdooda lixaad qaba sidaan oo kale baaskiilka lagu fariisto uma wadi karaan. Waxayna ku noqotay dadkii arrin cajiib ah. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay channelka maanta, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adiga oo share gareynaya. Waa inoo muuqaal kale. Mahadsanidin.